mustaqbalka wanaagsan ee Afrika wuxuu ku xiran yahay istixgelin nabad ku wada noolaanshiyo iyo iskaashi aan la isku khasbin dadka Soomaaliyeed inta sida xun waxa loogu sheegayna waxaan mar kale ugu celinayaa una iftiiminayaa in jamhuuriyadda Soomaaliland ee la aqoonsaday ay tahay dal kale oo soo kordhay qowmiyadda Soomaaliyeed taladaydan goostee cidna eed kamaan gelin arrin gubasho keentiyo xaaje geedka lala tago golaha lama niman gacal iyo xigaalow Soomaaliya ay garo ganacsatada haweenka dhalinyarada ururada bulshada rayidka dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka iyo qoysaskooda guud ahaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland rag iyo dumarba gudo iyo dibadba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan shacbigayga meel kasta oo ay dunida ka joogaan waxaa la wadaagayaa hambaliyada iyo farxadda xuska munaasabadda 35 guurada maalinta qaranka ee 18 May 2026 aynu sanadkan haldhigeeda ka dhiganay aqoonsi iyo adkaysi walaalayaal ugu horeyn waxa iga xasuusinaa inay maanta inoo bilowdeen 10 maalmood ee ugu khayrka badnaa sanadka islaamka sida walla quraankiisa ku xusay falligooda Allah hayna siiyo cibaadada haynaga aqbalo nabadda horumarka iyo qarannimadana aynoo sii xoojiyo muslimiinta u tagtay cibaadada beydka Ilaahayna waxaan u rajaynayaa in Rabbi ka aqbalo acmaasha khayrka badan waxaan u mahadnaqayaa Alle inagu simay inaynu isugu nimaadno xuska dabaaldegga iyo damaashaadka maalinta qarankeena maalinta qaran ee uu leeyahay muwaadin kasta oo Soomaaliland u dhashay waxa farxad gaar ah inoo ah in maanta uu yahay xuskii koowaad ee aynu xusayno 18 May iyadoo aynu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland ee la aqoonsaday waxa kale oo aan shacbigayga ugu bishaareynaya in madaxweynaha dawladda Israa'iil uu maanta warqadaha aqoonsiga ee danjiranimo ka gudoobayo safiirka idman ee Israa'iil ee Soomaaliland danjire Dr. Maxamed Xaaji waxa uu noqon doonaa danjiri ugu horeeyay ee la aqoonsan yahay ee jamhuuriyadda Soomaaliland yeelato 35 sano ka hor 18 May 1999 ayaynu magaalada Burco ku qaadanay go'aankii taariikhiga ahaa ee aynu dib ugu soo noqonnay qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankaasi ma ahayn nacayb iyo caadifad midna wuxuu ahaa go'aan ku dhisan casharadii aynu ka baranay Israa'iil lagu hungoobay ee Soomaaliland iyo Soomaaliya dhex maray 1 Luulyo 1960 waxaynu u ducaynaynaa halyeeyadii noloshooda hantidooda iyo danahooda shakhsiga ahba u sadqeeyay in ubadkoodu iyo ehelkoodu ay gaadhaan himiladii u rimoobay weyday iyaga waxaan u ducaynaynaa haldoorkii bulshada iyo guurtidii nabadda iyo dib u dhiska qaranka dhidibada u taagtay waxaan u mahadnaqayaa hogaamiyeyaashii seeska u dhigay dhismaha dawladnimada iyo hirgelinta dimuqraadiyadda oo sababtay nidaamka qoriisu dhiibka ah ee aynu horumarka aynu ku gaadhnay waxaan bogaadinayaa guud ahaan muwaadiniinta reer Soomaaliland
adkaysigoodu ku simay aqoonsiga aynu haysanno maanta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka soo baxday dhammaan shuruudihii looga baahnaa dal mas'uul ah nabad ah sharci iyo dimuqraadiyad ka jirto xuduudadiisana la yaqaano dunidana xiriir wanaagsan kula macaamila taasi oo keentay in su'aasha maanta jamhuuriyadda Soomaaliland dawladaha weydiisaa aanay ahayn ma u qalanaa aqoonsi balse ay tahay goorma ayaad intiina kale aqoonsanaysaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu mahadnaqayaa dawladda Israa'iil oo noqotay dalkii koowaad ee dunida si buuxda u aqoonsaday jiritaanka qarannimada iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaanu mahadnaqayaa dalalka aynu jaalka iyo saaxiibka nahay iyo dal kasta oo garowshiye ka muujiyey qadiyadda Soomaaliland waxaan mar kale cusboonaysiinayaa baaqeennii aynu dunida kaga codsanaynay in la aqoonsado xaqa sharci taariikheed iyo akhlaaqeed ay jamhuuriyadda Soomaaliland u leedahay jiritaanka qarannimadeeda waxaanu gacan saaxiibtinimo iyo iskaashi u fidinayaa dalalka kale ee aynu deriska nahay iyo guud ahaanba qaaradda Afrika iyo dalalka Carabta iyo Islaamka waxaan ugu baaqayaa dalalka xubnaha ka ah midowga Afrika in wax laga barto cawaaqib xumada qaaraddeena ka soo gaadhay isku toridda dawladaha israaci karin iyo isku qasbidda nidaamyo siyaasadeed oo aan isqaban karin waxaan ku talinayaa in la qaato taladii guddigii xaqiiqa raadinta ahaa ee midowga Afrika u soo diray jamhuuriyadda Soomaaliland 2005 mustaqbalka wanaagsan ee Afrika wuxuu ku xidhan yahay istixgelin nabad ku wada noolaanshiyo iyo iskaashi aan la isku khasbin dadka Soomaaliyeed inta sida xun waxa loogu sheegayna waxaan mar kale ugu celinayaa una iftiiminayaa in jamhuuriyadda Soomaaliland ee la aqoonsaday ay tahay dal kale oo soo kordhay qowmiyadda Soomaaliyeed dalkeena Soomaaliland waxa ka dhab ah niyad wanaagii uu abwaan Ali Seeyo suugaantiisa ku cabiray markuu lahaa taladaydan goostee cidna eed kamaan gelin arrin gubasho keentiyo xaaje geedka lala tago golaha lama niman gacal iyo xigaalow Soomaaliyay garo kala guurkii maahee kala gurasho weeye garo dalal badan oo sideedna midnimo ku tamarin waayay ayaa maanta mid kasta gaarkiisa u yahay barwaaqa sooran awood dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ku jooga Serbia iyo Montenegro ayaa marag dhow inoogu filan labadan dal waxay isaga mid yihiin wax kasta oo Soomaalidu wadaagto dadkoodu waa isku isir waa isku af waa isku diin waa isku dhaqan waxa ka dhaxeeya taariikh mid ah iyo sooyaal siyaasadeed oo aad u dheer iskood bay u midoobeen 1918 88 sanadood kadib Montenegro waxa uu soo baxday inaanay danteedu ku jirin wada jirka haddii Soomaaliland dadkeedu 97% ugu codeeyeen madax bannaani dalka Montenegro aftidii laga qaaday bishii Juun 2006 dadkiisa 55% kaliya ayaa u codeeyay goosashada taas ayaanu ku noqday qaran madax bannaan
intii ka dambaysay qarannimada dalka Montenegro waxaa kordhay boqolkiiba 67 ayuu kordhay dakhliga wax soo saarka gudaha ee GDP-ga la yiraahdo halka dalkii uu ka go'ay Serbia 250% kordhay ganacsiga iyo dhaqaalaha dhexmara labada dal wuxuu maanta kordhay boqolkiiba 300 20 sannadood gudahood waxaan aaminsanahay in Somaliland oo qaran madax bannaanahi ay wax badan ka tari doonto horumarka dhaqaalaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolka geeska iyo bariga Afrika Jamhuuriyadda Somaliland waxay u gudubtay marxaladda horumarka iyo dhismaha xuduudda qarannimada waxay isu diyaarinaysaa inay noqoto xudun dhaqaale oo Afrika ku xidhaysa badda cas iyo suuqyada adduunka Jamhuuriyadda Somaliland waxay xoojinaysaa amnigeeda iyo xasiloonideeda waxay dadaal ugu jirtaa si casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaheeda waxaanay dunida ku soo kordhinaysaa fursado dhaqaale iyo maalgashi oo dihin xukuumadda wadajir iyo waxqabad waxay sanadka 2026 mudnaanta siinaysaa ictiraafka kobcinta dhaqaalaha maalgashiga iyo casriyeynta ciidamada qaranka ee kala duwan si loo kobciyo xirfadahooda anshaxa iyo kartida sii xoojinaya awooddooda difaaca amniga qaranka iyo ilaalinta xuduudihiisa munaasabaddan maanta qaran awgeed waxaan salaan iyo duco u dirayaa ciidanka qaranka ee heeganka ugu jira difaaca qaranka ciidanka booliska ciidanka asluubta ciidanka ilaalada xeebaha ciidanka socdaalka iyo xuduudaha iyo ciidanka debdemiska halyeeyada dirayska u xidhan difaaca qarankooda iyo hay'adaha amniga qaranka guud ahaan waxaan leeyahay walaalayaal waddaniyadda nafurkiinna daacadnimada iyo dhabaradaygiinna ayaa tiirka ugu weyn ee ku dhisan tahay nabadgelyada xasiloonida iyo sharafta qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland la aqoonsan yahay qarankiinuna wuu idin ogsoon yahay waanu idin abaalgudaya muwaadiniinta Somaliland ee dalka iyo dibaddiisaba jooga waxaan idinku bogaadinayaa dal jacaylka iyo dadaalka aan joogsiga lahayn ee aad qadiyaddeena Somaliland ku garab taagan tihiin waxaan qurba joogga si gaar ah ugu baaqaya inay fariinta Jamhuuriyadda Somaliland gaarsiiyaan golayaasha dunidu ku kulanto iyo fagaaro kasta oo caalami ah iyaga oo ah diranayaal dalkooda u adeegaya walaalayaal dimuqraadiyaddu waa guusha ugu weyn aynu maanta ku faanno waxaa waajib ah inay korto oo ay horumar samayso waajib baa naga saaran xoojinta hay-adaheenna dimuqraadiyadda dib u habaynta shuruucda iyo xeerarka dalka iyo inaannu horumarinno nidaamkeenna doorasho xukuumad ahaan way naga go'an tahay inaannu ka shaqayno waajibaadkaas dadkaygow in siyaasadda aynu ku kala aragti duwanaannaa waa sababta aynu nidaamka dimuqraadiga ah u qaadannay laakiin yaynaan oggolaan in kala duwanaashaheennu siyaasaddu uu dhaawaco qarankeenna axdigeennu waa in qarannimada Somaliland ay ka sarrayso wax kasta oo ayna qaybin kara waxaynu nahay ummad ilbaxa oo wada hadal iyo ismaqal ku xallisa caqabadaha ka hor yimaada Somaliland laba kala laha
loomana kala abtirin karo waxa wada leh dadkeeda alla ku beeray mustaqbalkeeduna wuxuu ku xidhan yahay ilaalinta wada lahaanshiyaha iyo midnimadiisa dalka wuu inaga badan yahay khayraadka ku jiraana wuu inagu filan yahay waxaynu u baahannahay nabad iyo midnimo Somaliland mustaqbalka dhow waxay noqon doontaa dalalka dunida ugu hodansan insha Allah waxaanu mahadnaqayaa dalalka aynu saaxiibka nahay iyo hay'adaha caalamiga ah ee aynu wada shaqaynta leenahay ee maalmihii ugu dambeeyey siyaabo kala duwan noo soo gaadhsiiyey hambaliyada iyo bogaadinta maalinta dib u curashada qarannimada jamhuuriyadda Somaliland ee 18 May dhammaan dadka reer Somaliland gudaha iyo dibadda waxaan leeyahay farxad iyo badhaadhe ku damaashaada oo ku dabaaldega allaha barakeeyo jamhuuriyadda Somaliland dalkeeda iyo dadkeeda hambalyo 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 Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Allahu akbar Allahu akbar والسلام عليكم